soo dhawaada walaalayaal. Soo dhawaada. Soo dhawaada walaalayaal, sii sheer gareeya duu Ilaahay yiraaho. Marka waxaan ilaahay soo dhawaada kulli walaalayaal. Waxaan rabaa arinta maanta ayaanta labadan beri dhex maray shalay iyo beriga. Waxaan rabaa inaan ka hadlo hadduu Ilaahay yiraaho. Marka waa bilaabaya hadduu Ilaahay soo bato horta markii hore. Soo bata. Waxaan rabaa arintii Xasan Sheekh inaan ka hadlo hadduu Ilaahay yiraaho. Dadka ku sii waxa gareeha hadduu Ilaahay yiraaho. Soo bata. Xasan Sheekh hadalkiisa iyo waxaan daba joogaa hadduu Ilaahay yiraaho. iyo dadka shacabka waxay ka yireen iyo maxkamadda adduunka cadaaladda adduunka iyo midda hagarashada eenaha karatay waxyaalahaas inaan ka warramo rabaa hadduu Ilaahay yiraaho. Marka waxaa leeyahay walaalayaal horta si sheer gareeya. Horta maqalkeyga isoo qorabo maqal ma jiraa. Waxaan rabaa inaad maqalka isoo qortiino amba maya. Soo bata isoo ruursada hadduu Ilaahay yiraaho. Waalaikum assalaam. Waan sii sheer gareeya. Waxaan rabaa arinta Xasan Sheekh aan daba joogaa hadduu Ilaahay yiraaho. iyo waxaan daba joogaa wixii uu ka yiray maasha Allah haddii lee maqlo waa boosta. Marka waxaan leeyahay waa bilaabayaa si sheer gareeya isii gaarsiiyo. Waxaan rabaa arinta Xasan Sheekh inaan ka hadlo uu yiray baddeeni Soomaaliyeed waraaqdii oo ka soo baxday maxkamadda adduunka dib loogu dhigay iyo arrimihii uu ka yiri iyo wixii uu ku hadaliyay iyo Sheekh Shariif xataa madasha qaran waxay soo qortay soo dhigtay Facebook-ga. waxyaalahaas ayaan taabta rabaa iyo meesha qaladka ka jira. Soo dhawaa Cumar, soo dhawaa Cabdullaahi, kulli soo dhawaada. waxaan leeyahay Falastiin soo dhawaa adigana masha Allah. waxaan ilaahay si sheer gareeyo. marka arintaas rabaa oo soo galay maanta. waxaan ilaahay horta Ramadaan Kariim ciid wanaagsan waan ilaahay masha Allah. inkastoo Ramadaanka gabagaba yahay oo caawa inay u dambeyso iyo inay ku dhamaad doonto Axad shaki weli ku jiro hadduu Ilaahay yiraaho. marka ciid wanaagsan waan ilaahay soo dhawaada. marka arrimahaas u soo galay xalay fursada u waayay oo ku soo galo. waa iska mashquul badan waa ogtiin shaqo iyo wax baa lagu daba ordaya laga daba cararaya. marka waxaan rabaa adeerkay Xasan Sheekh shalay waa waranyay. marka hadalkiisa yaa dama jooga. marka hadalku ku hadaliyay iyo waxa uu damacsan yahay iyo heerku la hadlayo maban fahmin anaka hadana shacabka Soomaaliyeed. Xasan Sheekh shalay waa yimid media. soo dhawaada walaalayaal si sheer gareeyo si gaarsiiyo. xabiibo soo dhawaaw xabiibo Ibrahim masha Allah soo dhawaaw. marka waxaa leeyahay arrimaha uu ka hadaliyay iyo wixii oo anaga ka filahaynay horta waa kaaf iyo kala dheeriyay ka taan. Xasan Sheekh wuxuu yiray Ilaahay ku musamo darnaade marka xilliga anaga maxkamadda geynay horta afkiisa isku fashilabo. Kenya wada hadal la galnay. Kenya laba jeer wafdi u dirnay. Kenya asiga isfashilay. Kenya markay quursato horta Ilaahana badbaadiyay. Xasan Sheekhna horta Ilaaha ka soo qaaday inuu geeyo. Kenya markayna quursatay Kenya hadalkeena istira Soomaaliya way tabaryartaa. Soomaaliya hadda wax laga qaadan karaa. Soomaaliya hadda wax laga waxaysan karaa markay istiray Xasan Sheekh la quursaday. Xasan Sheekh hadii ay la quursaleen baarlamaankeena Soomaaliya Salaad Cali Jeelana waa sheegay oo markaas baarlamaanka ku jiray
يعني baarlamaanka markaas kuma jiro xilliga Sheekh Shariifna oo kooriyay xilligaana waa sheegay arrin awalba shaki nagu jiro hortana shaki baxshay Salaad Cali Jeelo arrintaana wada hadal haday Kenya ogolaaleed maanta badayna haysama lahayn waa ognahay waxa ka yani markay Xasan Sheekh la quursado dad la tashayo Ilaahay amarkiisa horta Ilaahana badbaadiyo badayni wax la geeyay Maxamed Heeg oo cadaaladda adduunka marka waxaan leeyahay Xasan Sheekh waa hadaliyay wuxuu yiri anaka marka xilliga joognay Kenya lama dagaashanaynin Kenya dagaal naguma wadin Kenya yani war Kenya seerabtay heshay markaas maanta waxay dagaalka noogu wada seerabtay ways Xasan Sheekh waxa ugu jawaabayaa caawa Kenya markuu xilligaasi madaxweynaha ahay seerabtay haysatay waxay seerabta ku haysatay anako qarax nagu socdo muqdisho laba maalin ka bacdi ba qarax dhacayo oo waxa ka dagtay islii oo coor qarax islii iga dhaco ka dhaco iyo halka muqdisho ka dhaca halka islii ka dhaca iga waxa badan ayaga xanuun badan Kenya waxay rabtay ka sameeyay jirtay anako dhiigayna qoyan gada iyo garbahaar ilmaheeni iyo caruurteeni iyo hooyooyinkeeni iyo xoolaheena lagu laayaa Kenya u sujuuday Kenya waxay rabtay ka haysato marka qofta Kenya hadii waxay rabtay ka haysato danteeda ka haysato maxay dagaalku ugu kicisa maanta waxay dagaal u kiciyay ayadoo yani dhulkayna burburiyaysa waxa u sujuudaysay ciidan oo gaala oo dhintay u sujuudaysay war Xasan Sheekh waxa ku war Xasan Sheekh horta ceeb looma dhinto war walaalo warkaad dhehaysid iyo waxa sameeysid waa laga fikiraa war walaalo waxa la Xasan Sheekh maanta hadalku ku hadlayo le Kenya anaka dagaal nagu ma haynin Kenya san war Kenya ila waagdan ay dagaal nagu hayso waxay dagaal nagu haysaa badayna rabtaa birigayna rabtaa wax walba rabtaa maanta ugu dambeys waa la shirtay Axmed Madoobo la yiri heed gadoomiyaha gada loo magacaabay Macallim Ismaan Macallimo loo magacaabay ha laga dhaafo ay taagan tahay marka waxaan leeyahay walaalayaalow ma lees qaldaya ninkan ma waalay ma fiyaawiyay waaba la yaabanahay Xasan Sheekh ma fiyaayo masma waalay ma og wallahi wax ka sikay war adiga markay dantaada ka hesho Kenya markaas dagaal kicimayni maanta danteeda ay waasay maanta waxaynu hasuuqaysa ee cos qurun iyo meelahaas dadku ugu hasuuqayso waa dantayna naga waasay waxaynu cadaadiyaysa danteeda naga waasay danteeda naga waasay يعني أيك يا قريان إن ما كان أيكو ماشي لقى نحن بض هلي مينا كي وقوسطي بض إن هلينا أنا كا أمركاتك شعب كصومالي هذا مركاتك إن الدولة ده أتبع شعب كصومالي هذا مركاتك والشعب كيف شكل جلي وحي على ما لا صحيح وروح لا صحيح ما جرتو بض إنه وين صونقي ولا صحيح من وحنا لقى يابا يعني داهد ده وعلي غير كصودا إنه غير كنوع جراب لقى يابا nimankan insha Allah ma tagayaan waa loogu daraa hadaana shacabka Soomaaliyeed nimankan 2 sano waa loogu daraa ayadoo doorasho dhicina 2 sano loogu daraa Kenya ha quusato markaas Kenya way quusa doontaa marka wuxuu leeyahay anaga inta noo soo istaago waxa leeyahay Xasan Sheekh dawladda sirtaada ma banaanka soo dhigtaa dawladda waxageeda ma sirtaada ma banaanka soo dhigtaa ma shacabka u sheegtaa war dawladda waxa xukuumad waaye ماشي الدولة ka jirta kala dambeeyna ka jirta dawlad sirteeda yani shacabku inta uu soo bandhigtay dhehaysa yani insaan ay dacwadeedu u socdaa insaan qareen u qabsada insaan u qabsada ma aragtay war waxaan u arkaa aniga ka qarima Salaad Cali Jeelo waa ka gambada aniga ka qarima waxaad ina Kenya ka turjumaysid ee sirtayna ogaato ee waxagayna ogaato ee waxa rabtaa yani halka qareen u qabsan iyo halka waxa u qabsan ee ogaata rabtaa Kenya la hadlis أنا كنا la hadli min dan Soomaaliyeed ka hadli min Xasan Sheekh Kenya la hadlay marka walaalayaal waxa leeyahay dadka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed maanta isweydiiyay war walaalayaal dawladdeena waa dawlad wanaagsan hadda leena war dawladda taaka oo kamid dhulka iyo biriga iyo badda ma ongolo Kenya ayada naga cabaatay dadkeedii cabaaday yani shacabkeedii cabaaday dawladii cabaaday ma u jeedno inta garabka inta naga istaagi lahay waa nin madaxweyne soo noqday ee dawladdiisa garabka ka istaagi lahay oo dhii lahay dawladana la jira aniga la jiro dawladda waa ku garab taagana dhii lahay Kenya war u gudbiha Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif war hoosh waa ku fashilanteen siyaasad waa ku fashilanteen waxa haysiin ma jirto hadda sheeg waxa ismid nina Caliir hadda kor geed koray
geedka markuu fiinta koro soo dhacya marka dadaa meesha joogo fiiriya ascil reebala waa dhacdaa liiri markaas wuxuu yiri dagashadaba ka fududoo yiri hadda anagu waxaan oo diin sada oo siyaasadda ku fishilateen يعني wax baad dadadaysiin waxa leedin dagashada ka fudud ma rabno anaka baan ku sheegmayna dibkiina qarsaysiin siyaasadda ina ku dhax kufteena qarsaysiin dhibaatada ni aysan qarsaysiin dalka dibbiga ka gasheena qariyaysiin dhibaatada noo geysateena qariyaysiin mana yeelayno haddana ana shacabka Soomaaliyeed yeeli mayno maanta ana dad ku xiga ka yeeli maanta waxaan helaa aftiin ka yeeli maanta waxaan arkay dawladnimo ka yeeli maanta waxaan arkay yani wax indheygu ku farxaan arkay dawladda Soomaaliyeed walaalayaal waxa marka asiga hadda wuxuu ku andaco waa anaka keen xariiraan anaga dhaxeeyay warkeen waa tiin la haysay keen waa hantidayna tii burbureysay hormuud iyo wax burburiyeysay keen waa hooyooyinku waxay dhameysay keen waa waxa xoolaha gada iyo garbaare iyo agaarkaas iyo jubooyinka kula jirtay duqay jirtay baawurta dadka marsii jirtay war waxaasa marka maanta anaga waxaan dhahay aheed oo ka aamusnaa jiray waraasa sheeqo waa ceebowday ceebtaadana cirbarqaayo waay waxaad garatana ma jirto war siyaasadda maas laga raadso siyaasadda laga raad dalkaada yani mucaarad leeyahay mucaarad ma tiin dawladdu masaatiin mucaarad waxa lagu yaqaan hadee dalkaada iyo dal shashay isqabtaan waa kii garabka ka istaaga dawladiisa waa madaxdiisa kii garabka ka istaago oo dalka dheel ma galo dalka aniga maanta shacab wuxuu iibaayaa garabka ka istaago wuxuu iibaayaa madaxdeeda inaa yani ixtiraamo wuxuu iibaayaa inaa talada ugu dambeeyo wuxuu iibaayaa waxa ii soo goysay inaa raali ku noqdo waa ogahay inay maxkamadda adduunka naga hiilisay waa ogahay maxkamadda adduunka maanta inay naga hiiliso waa ogahay maxay nooga hiilisay adi madaxaaday nooga hiilisay xasan sheekh madaxiisa nooga hiilisay iyo wixii la mid lugta naga goohay hadda dawlad isku toosananay dawlad awood lalnaanay dawlad waxaan aanay Soomaaliya isku toosan oo nahnay maanta dawladda Soomaaliya way ka warami lahayd maxay ugu warame idinkaaba lugta ka gooyseen maalin walba dal shashay u shaqaysiin waxa u shaqaysiin waxaa tiin daba dhilif war waxaan leeyahay nimankaanow walaalayaalow dad ana niixigo maatan ana runta ni sheegay war siyaasadda waa ku fashilantay ninka maanta geedka ka soo dhacay dagashadaba ka fududaa noo wadiin mana doonayno ninka maanta inta geedka fiintiisa ka soo dhacay qariha dib ka gaaray geeda ka soo dhacda kafaanay maanta siyaasadda ugu dhax kufteen waxa taagantiin dagashadaba ka fudud ata nin soo dhacay iyo nin soo dagtay isku halmiya nin soo dagtay dhibaato ma gaarin ninka soo dhacay dhibaato gaartay maanta dhibaato ku gaartaas waxa leedahay dagashadaba ka fudud maalin walba noo wata waa diidnay ruuxan ilaa walaalayaal meel inta iska fadhiisatiin war isqariya wajiga Soomaaliyeed iska qariya shacabka Soomaaliyeed iska qariya wax walba waxay niigu naqatay dhibaato niigu naqatay hadalka sheegtiin baraha bulshada waa la isla dhaxmaraa ilaa wax ma aho wax oo maskaxda galay ma aho war waxaan ilaa maanta waxa leeyahay maanta anigoo niigu family yani waxaan nahnay waxa isku nahnay maanta runta ni sheegayo mana maqlaysiino kan ataa waxa leeyahay kan oo media ka warram anigu qabiil ma waxa ugu taagay qabiil ana maxaa kuugu ataagay ana qabiil ma kuugu ataagay ana kuugu ciidan kuugu ataagay maya kuugu ma waxaynin runta ku sheegaya waad ku fashilantay siyaasadda waa ku fashilanteen waa yani dhibaato u geysateen dalka dhibaatada u geysateen Sheekh Shariif hadda maanta ii soo qoray madar qalan iyo wax in inta isku sheegan xisbiye qaran isku sheegan oo waxa ii soo qoray adiga laba agaha ii galisay maanta maxaa qoraal ii soo qoray dhibaatada ii haysata ada ii geysatay maanta Keenyan ada ii jilcisay maxaa ii soo qoray lugaha waagiga haysa war walaalayaal waxaan leeyahay dadkan waxa dad qabsado malamiya war anaku amaan naqan abgaal ismaan oo amaan naqan dada wax qabsanin siyaasadda waa ku fashilmeen waa u jeedin nin siyaasadiisa toosan taaba hala taageero nin siyaasadiisa yani umada way qaldantaa ha u qaldantaa dhiimen hanaga fadhiistaano qaladkiin waagadan wax tagay qalad ma galinay taagayin illa waagadan hadday meel inta naga fadhiistaan qaladkooda ogaal lahaayeen meel naga fadhiisan lahayn yani garan u lahayn gara u lahayn waa iska aamusleen qaladkoodii ay ku u jeedaan maalin walba noo soo taagan maalin walba waa lama madaxweyne waa iska dabalumaha waa socdaan
كان هذا ورقة صار قال قروا دي واحد لوك سوميري واسعدان ويعني قروا نمك قروا بجوغان يا أيك واسعدان waxay ka dagi laadaan waa nimanka garooba joogo iyo labadan nin iyo waxay dabada ku wataan iyo axmedo waxa axmedo maanta waxa keeyaan anaka waa diidnaa ku waxa doonto sheegtiin waa diidnay amba qayli amba bod amba dhac amba geeda ka soo dhacay dagashadii iyo fududaadhe siyaasadda ku dhex kufteen ka taga rag waa laga raajire ka taga siyaasadda waa niga qaldantay waa kufteen waa niila jeeda ummadda dhan indhaha leeda waa nii jeeda war iska baxa dhibaato kale ha geysanine dhibaatada halaha oo Soomaali ka gashan maanta hadii niila dhaafaa waxa marka waxa leeyahay dadka aqliga ma la maalin walba siyaasadda la socona حاسس aniga marka dhahay yani asiga madaxweyne ahay inuu badda wada hadal ka galay macruuf waa ogay maalin walba siyaasadiis waa la soo jiray ma hadli jirin waxa uu hadli jiray waxa sidii jiray wax ku dhaamay inta kiimaa iska aamus kama hadli jir miidiyo waxa yani dad oo wata iyo maalaha markuu yani waxaan sheegay iyo waxaan qalad ka dhacay waa fiirsan jiray mana ka hadli jiray waxaan uga hadli jiray waxa dhijir ilaaha joogo qof ka fiican ilaahay noo kan hadda maanta dad ka fiican ilaahay ii keen oo farmaajo ii qeyr ilaahay ii keen wax kana ayga ka shaqeeyeen war walaalayaalo siyaasadda waa ku fashalanteen awal bi ilaahay si soo booday siyaasad kama dhex muuqa jirin ra'iisul wasaare soo ma naqanin wasiir soo ma naqanin waxa soo naqtaan malo koobiyo dhuuq jir meelaha oo yani jaamacadii wax ka dhigi jiray kan kale iyo meeshii ahayd maxaakin iyo wax daajoon daba joogi jiray siyaasad soo booday ahayd ilaahani qoray ina kursigaas ku fadhiisatiin qofta ay ku raasay siyaasadda ina taxadka ka soo bilowday ilaa fooq u geyso أنا وحصان قنين واحد برانين يعني واحد سكات شعب عادي سكات دي باشر كوكسو بود ولا عليه لو أقل جنا ولا شقيا باشر دو إلهي شال كوسية كو قلبنتي وروح على ربع شعب كسومالي دعابة نعفي إنا تراهين مات أنت صور استخدم ولا عليه لو قال ذا قالنا نعفي لا إلا واجد أنا شقيسين إلا واجد أنا كيان وشقيسين warbada Soomaaliyeed waa qadiyad ka dhaxayso shacabka Soomaaliyeed ay ka dhaxaysa waxay ka dhaxaysa madaxweyne farmaajo iyo qeyr kale god kuma laho aniga kula warama qadiyadan iiga dhaxayso aniga kula waramay dhulka qeyban ka leeyahay dhibaatadana gaarto waana wada gaartay waa ognahay inay maanta nagu seexatay yani maxamed waa ognahay maxay noogu seexatay anaka kala jeedno أنا سياسيين نفط نوكن ورولاليالو طلوا وحليا كمان واحد جوعان قروب جوعان طلع لي ومجرتن ونجا قبصدا أبقى اسمانون كمان قبصدا والله أبيلا واحد قصو اللي بعتذر جست أنا كواي أو واحد نبكى كاني وراس قبصن ولا ليالو إيمان علينا وحالنا أسقبصنو صومالي ويني وحاليا يعني أنا قلفتها كتلش وحالي لبضان هنا قلقبتو لبضان السياسة دوي كفشلمي إني سو نقيني نوا أوغهي ما أنت ما ضحت نميليني هدا فشلمي نوا كان وانا دبجوغان ولا ليالو نقبت إما كأبقى اسمانو نما كان نقبت نما كان وعواية يعني حمر ما شاء الله تبارك الله حمر يعني نبضة كجرت ووجدين خرحة نجهري دباتا نجهرتي إسبارة نجهرتي حاسة شقصوها إسبارة دين عكتي الحمر حاسة شقصو حكم كهاي إسبارة دين عكتي الحمر خرح أونسي دبجوه وشعب كهر مقدشو وروحاني لايا وحان لايا مانتا نوالبو دايريا دبكو كاسدا انت بناك سو استاكسي اوديال دقمتك بناك سو سين دايري نمكاس انا كشغلكم ماليهن هل خير مركز والله امسي لو خير لا والله او بلا طلع انا كمدحين واي dadka abgaal isma madaxiis waa waxa maanta loo dhaafsan oo amaan loo siiyeen kuwan Puntland jooga ma jartaa ka ceebeeyeen ee dhibaatada geesteen ee dadka kala qoqobeen ee maanta u dambaysa ee heed garaash dhahan waa bedelayna ee ko calooshiis u shaqeysta keeni rabaano ya ee dhulmahanta
ساوغانتا سارين ورسنجلي تاوغانتا سارين كوباسنا وعالم مجرتنا واسكا قبطة مجرتنا علماء ليدين عامية ليدين اسكا قبطة أنا كان اسكا قبنا والله أو بالله لبضا فدنا ونكواي صومالي قبيلة وحكو قبصة قبيلة هذا ماتا أنا إنا شاقة مرة من إنا شاقة مرة صومالي وين إنا أودو ضربي إلا بوقتها ما يكجرت إلا شاقة واي وبيبو حال ملايا أوري ماتا أنا كشريف إي وحاي أوريين وبيبو حال ملايا أوريا ليري هذا السياسيين دكو فشل واحد أنا دم بلوغو قاد الله يهي واحد أنا خلق كيقالن لوغ آمسية ما تقانين أنا كواي وعلى الله دي اللي عرق قبيلة سوكعان هدي محمد لا صار مات إني دم بالله وأوغا أنا كيان أنا لدوريا أنا كيبان نقل ورسوغيا وروحاني الله ورقبرتين قور مقشو والله قبرتين قور مقشو قبرتين قور مقشو هذا أبقالنا أنا وحين أقالين ما تقانا يعني نمان قرد قالين دولك الصوماليات إبسدين كرسي انتي كرسي يعني والقار هدا إسلاين دباتة قاستين كرسي قوان نصيب شالي إلها سو مرسية ما أنتني إن شاء الله دي إله قروا هلايان ما تورت ما بهلايان وما يعني وأركتين برا بولشدا وح أوقف فلان مركاتي وح أوقف فلان مركاتي وح أوقف فلان صلاة على الجيل هذا الكيس صلاة على الجيل وان نظيف يعني سياسة يعني فهسن إلهي إيمان كيسون نجي maalin walba garooba inta lagu cadaal dhijir waryaaba ka tuurayna amba waxblo saxiixal dhijir garooba tuu garooba isniin ama halaana soo dhigtay ilaa waagadan dastuur meel wadna aan ugu qoray faroolo waxa Allah ka sababiyo wixii la jiro arjane war waxa leeyahay walaalayaalo jufa haday qabiil qaran ma noqdo qabiil qaran ma noqdo qabiil wuxuu qaran u naqana ku sheegaa Buntland waxaad Buntland la wada leeyahay dhisanto waxaad Buntland dadka dhan ka dhaxayso maanta ay ku soo aruurtay ma jaartaanka xataa islama haasto afar qofood oo mooryaan isku soo aruurtay garoow afar qofood waxay isku soo aruurtay ay kiba si kala fiiqaya waxa la yeelaa inta la kala fiiqa sida basasha la kala fiiqa war waxa ku raaqdara meel ma gaarto dulmi meel ma gaaro الحمد لله دولتين هذا وأمهد على بود داود كدجسي برن داود كدجسي دلك وادت كيدي دلك وادل كيدي حقي ولاده إني كدجسو والشعب كصومالي هذا شعب كصومالي هذا أنت إسكت داينو مامل قبلات توج إسكت داينو كان نقول حجر توج الساق بنو عدالة آخر كانوا عدالة وحكي أنا كدبي أو قلين مكو قاعدينو دمبي oo asigaysan ku qaadimayno dimbiga asiga oo geesto xoolaha islaameed dhuusaday xoolaha islaameed gatay bad naga gatay bir naga gatay ku qaadno cadaalad markaas la helaya marka waxaan ilaa walaalayaal indhaha yaa la qabsanin ana kuwa soo jeedna shacab hadaan ahnay shacabku wax waa fahmayaan shacabka aqligooda waa shaqeynaya shacabka shalay ma oo marka la qayaani jiray shacabka shalay ma oo marka beenta loo sheegi jiray beenta marka loo sheegi jiray media la soo rogsi jiray waa ka baxnay maanta awalba waxna horka calaynay awalba wax dawlad oo yani waxaan naqano noo keenta weyn awalba waxa u aamusneen waxay dhibaatana haysato waxaan ahaynay yani dad oo waxa aynay meel u kacaan wareersanana hadda abadan tuuga qaras waa diidnay dawladdeena waxa ku cusub shacabka Soomaaliyeed gacantayna maanta ku haysanaa gacantayna wax ku haysanaa guusha dawladda fursadayna siisay waxa waa shacab inuu dooro doono fursadaas inta ka gaareen waxaan ilaa walaalayaal dal joog dibad joog dawladeena 2 sano ha loogu daro baarlamaanka waa la hadlaya caawo baarlamaanka waa la hadlaya nimanka baarlamaanka golaha baarlamaanka ku jiro gudoomiyaha aqalka saro iyo gudoomiyaha golaha shacabka waa la hadlaya war waxaan ilaa walaalayaal cadawana haasto dal shashayaan ugu soo duulay waqtiga waa surca hadda ahayd farmaajo mugal doorahay 4 sano gadaal soo dhigin 2 sano wax naga dhibi meesay Kenya ha quusatay 2 sano ha loogu daro
nabad in nolol 2 sano ha loogu daro calaa farj ha loogu daro cadaway naga celisay shashaayay naga bixisay ilaa waagadaanay dagaalamay ilaa waagadan oo curbi aan shaki inuu u galsay xasan sheekh maanta inuu shaki igalso oo curbiya sirta dawladda Soomaaliyeed oo curbiya in shacabka wax loo gudbiyo shashaayo curbiya in media la soo rogsado curbiya yani qareenada la bedeli in maalin walba la soo rogo curbiya sirtan ku duulayna badayna ku soo dhacsan in banaanka la keen Kenya qaadato muxuu saano ku faliishay caawo muxuu saano ku falay wuxuu saano ku falay mal ninkii dhahaye yani madaxweynaha ma hadlo madaxweynaha muxuu hadlaya ana ku caana deeqda kafi nagu kafi waxaan uga ra'iisul wasaare ku xigeenka hadalkoona yiri waa aamsanahay waana tabaraysa doona insha Allah waa ka bixi doona ana ko qubad leh nagala cabsahay caalamka naga cabsahay nagu taagsan doona waa gaari doona caalamka ana ko yani ma sha Allah tabaarak la Soomaali baale waa gaari doona daba dhilfna way naga bixi doona dhibaato dhan way naga heri doontaa waxa u baahanahay shacabo waxa u baahana adkaysi shacabo waxa u baahana dhabar adeeg shacabo waxa u baahana geeskeena inaan qabsano shacabo waxa u baahana maanta inaan qof walba ay fiirin farmaajo iyo khayro ay fiirin qabiil ay fiiriso wadankeeda dalkeeda inay fiiriso dalkeeda ninka yani u soo dhicihay dalkeeda maanta ninka u keenaye yani libantis u keenaye inay fiiriso ma ina qabiil fiirino ma ina fiirin heer habalo u dhashay ninkaas ina fiirino ma aho maanta waxaan taaganahay dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaan taaganahay maanta ina gacnaha isqabsano caawada waa caaba ilaahay yani insha Allah Ramadaan inuu aakhiriha laga yaaba ma hubo hadoo waxaan leeyahay caawo waxaan taaganahay Soomaali weyne caawo waxaan taaganahay ina gacnaha isqabsano caawo waxaan leenahay laba mid dooro laba dara mid dooro laba ina kala doorano ina limatayna doorano ina qasaaradeena doorano labadaas waxaan u leeyahay kalaankaas ma taqaanin waxa u leeyahay shacabka Soomaaliyeed maanta dawladan hadii loogu daro 2 sano waxay tahay libana dooranay hadda koornimaadne u hiilino tug daba dhilfoona dhacayo tug dhulkayna dhacayo maanta hadaan u hiilinana wallahi oo billahi yani qasaaradeena dooranay waxaan ilaa walaalayaalo adduun wax laga qaadayo malo adduun isku duubinaana yani isla jir war gobolka ardo nin walba horta inuu is xisaabiyo waay waxaan hilmaankeena iska dhaafno maanta ina xisaabtantid 30 sano maxaa soo martay 30 sano maxaa maamul goboleed ku qabtay 30 sano maxaa dhibaato ku soo gaartay 30 sano maxaa ku soo gaar waay maanta ifafaala aragna هذا متى كلنا وحارب فيصل على ورابنا هناك ورم فيصل على وراب وحير هير مقدشو وحياله بدن اسكو دردري horta shacabka heer Soomaaliland waa salaam waa shacab fiican وعلى shacabka Soomaaliland horta waxaan leeyahay ciidamada ugu sheegay geesiniinta iyo waxa ugu sheegay horta waa geesiyaal Soomaaliya oo fuli waa la waayay Soomaali qoraq qaatay fuli waa la waayay waa ku amaana bas ilo soo waxa liiri ragga ninka ragga gurigiis libaax kama noqdo gurigiis iiraarkiis libaax kama noqdo waxa Allah ma taqaanin ninka ragga gurigiis libaax kama noqdo bisada uu ka noqdaa bisada inta salaaxatid atrad waxa leeyahay Soomaaliland waxa ka jira waa ognahay Soomaaliland qofta kalmad sheegto waa la xiraa qofti yani fikradeeda ka waranta waa la xiraa xuriyad ma jirto marka adiga ciidanka Soomaaliyeed libaaxyada lagu sheegay maanta Soomaaliland joogan inay dadkooda libaax u noqdaan dadka kalena bisad u noqdaan waa ka xumahay ha u naqalina dadkiina libaax dadka kale shashaayaa u noqda Soomaali shashaa iskuma Soomaali way isla dhalatay Soomaali meel kale ma tagta amba la kala go'an ba la isla jiro marka hadihina Faisal على waraamana wuxuu sheegay yani cabaadan u arka ataaba u arka waxa ataab ugu arka
awal hore dowlad muqdisho joogta ee ka taliso ee yacni ay ka dareysan jireen ay ogaayeen dowlad waxay ogaayeen isla cunaa isla dhacnaa isla bomno yaqiinay maanta waxaas ma jiraan isla dhacnaa isla bomno ma jirto xisaabtana yaalo miiska wada hadalka xisaaba yaalo wixii waa la waayay maamul goboleeda wixii waa la waayay hadda taada ka soo baxda haya kuma la hadda taada ka soo bixina naga taga taalo wuxuu yiri nimankan oo waqooyi ka soo jeedo wuxuu haystaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka wuxuu haystaa Beylo wuxuu haystaa Bidaan wuxuu haystaa yacni waa ogahay wuxuu yiri daaray wax ka dhistaan oo yiri Hargeyso lacagtiina shacabka reer Muqdisho horta dhibaato odo weyn waay fiiri wuxuu leeyahay reer Muqdisho lacagtiina waxa lagu dhistaa ilaahay kuma samtarnaade daaro ilaa Turkiga daaro looga dhistaa war nimankaas waxay shaqaystaan naga shaqaystaan hooshooda nooga heleen anako daar noola dhisaynin qarax nagu socdo cashuur nagala qaadayo dhibaato walba soo marnay daarana laga dhisa jiray ilaa Nairobi ilaa waagada waxaan ugu lahaas waa daariin Nairobi Soomaali cagaha looga qabahayo waa daariin Nairobi laga dhistay cashuurta aan leeyahay qaado hooyaday Muqdisho joogta looga qaado cashuurta ani kan mujada asoona hooliyahay Muqdisho nabad ku soo dabaalay deen leega cafiyay caalamka isoo hardamayo shidaalkayga baqi rabo wax walba dowlad caalamka ka shaqeyso nidaamkeedu ku soo celiseen hadduu daara dhisana ilaa uuna ma arkay intaas oo dowlad ay soo martay ma arkay nin masq loo xiraay agaasimo waaxid ma aragtay nin loo xiraay wasiir ma aragtay nin wasaarad caafimaad agaasimo ka ma aragtay ma arkin wala la kala boobi jir waliga qof masq loo xiraay ma arkin qof tuugnimo loo xiraay ma arkin dowladda ka hor masq maga ay galayaan ma tay ugu dhacayaan maxay tahay cadaalad ay soo celiseen war Faysal Ali Waraabow waxa naqadin naagti tirmaati ha naqanin ninka raaya ninkayga maanta dii la sraacdo adigoo amaanaysa ku arka farmaajo iyo khayr amaanaysid lama wajiila tahay ya heer waqooyin wax uma haysid heer waqooyi xabada u haysan malaho waqooyi hadda yacni Muuse Biciya meesha maqaayad ku haysta shalay hadday wax ku hayaan fiiriya hadda wax ku haysin dakadiin barbaro barbaro shalay wasiirada muga laga celihay gudaha laga celay meesha shirkada Dibowal maale masdad Soomaaliyeed leh wasiirkiya laga celisay shacab iska dhaf wasiiriyooda laga celisay wakaas waa hadlaaya marka maxaa ku hadlay Faysal oo maxaa ku hadlay cadaalada tal maxay tahay wasiirkiya laga celisay waxay u naqtaan Xasan Sheekh iyo Umar ka joogana xalaanan dadka laga celi jiraan qanay wasiiradeena laga celi jiray madaxdeena laga celi jiray adigane ha kuugu gumaysto dhulka nin arbad dhulkaada kuugu gumaysto wax ka xun ma jirto dhulkaada xaq u leedahay wax gumaysan war Faysal oo gadaal isku fiiri Faysal gadaal ha isku fiiriyo wuxuu yahay ha arko waxa la ya dhalintiin waxa la yani horta reer Soomaaliland hadda wax waa ogaadeen 18 May markaa yani la dhigay way soo qoreen warqad dheer ay soo qoreen intaasoo waxa ay ko 100 qofood ka badan inta u socna inta u jeedna waa xisaabtameen inta ka dambaysan way xisaabtami doonaan waxana waa ku soo dhici doontiin arrintu waa ku soo dhici doontiin xaraana la isku haysama dad la caburiyo dad lagu ma haasto bilaad lama caburi karo marka gudihiinaba waxa Soomaaliland oo inka dabeeca waxa hela idinka horta dhaxdiina cadaalad hela daaraha oo Hargeysa ku yaalaan oo la dhisay iyo Turkiga adduun laga dhisay Hargeysa laga ma qaadamiya cashuurteeda gobolada waqooyi laga ma qaadamiya adikaada wuxuu dabadaada dulasho daba islaamad lama la dado Muqdisho dama yani alxamdulillah cadaalada ka timide Faysalow midan hoostaada ka bidhaantay midan hoostaada dhibaatada maad ka hadashid marka Muqdisho ka leeso hoostaada ka bidhaantay Hargeysa la isku dhaco baawurta la iska furto maal walba ninki wax sheega baawurkiisa la jiito dadka agwaanada ahay wax qorayna baawurta laga dhex jiito how sheegto war jaajuus dhinaco oo dhar cad inta lagu soo dhaxday Muuse Biciya diluura subci guriga caawada laga soo baxsaa
hoostiina ma ka banaata cadaaladda ma samaysiin idinka waxaa la yidhi gurigaada haddaa soo dhisto soo nadiifiso soo xaaqdo hadal maanta wuxuu leeyahay muqdisho walaalayaalo aan wax ma qariyo waxna ma qari doono nin stuugana qari ma dooni amba ha laygu naco amba ha laygu jeclaado idinkaynii talaa haddaan runta laga waramin wallahi oo bilaahi inaan la gaarayno wuxuu qof walbo haddaad dhoortidoo tiraad qoftaan kama hadli kartid qoftaa adee qaraabo kula tahay qoftaa adee jufo kula tahay haddaad tiraad wax hagaagaya ma jirto dowladdana ogow dowladda socota anaka waaye shacabka waaye dowladda ma aha farmaajo iyo khayraad dowlad waa shacabkeedu waaye shacabkaada hadduu isku toosan shacabkaada hadduu yani daanta dhinaca ka haayo dowladda waa socohe haddaas anaka kala jeno halkaa igu cid waay qaraabaanaan wax ma dhihi kari dani oo kale iyo axmed madoobe iyo wax ma dhihi kari xasan sheekh wax dhihi ma kari anuu qaraabe ila yahay war qaraabo wax nagu tari mayso qaraabe idhacaay wax igu tari maa qaraabo aniga qaxootiga dhig wax igu tari maa haddana ila sii rabo hadda dhibaato inaa sii maran rabo dhib inuu ii geysta rabo muxuu igu tara ay sheeg muxuu igu tara ani waxaa igu tarayso ani dowlad wax kama rabo dowladda soomaaliyeed waxaa ka rabaa mataqaana aniga waxaa rabaa nabadgelyo waxaa rabaa dhulkeygoo dhismo waxaa rabaa kala dambeyn waxaa rabaa amni waxaa rabaa inay ii shaqayso ya halaasaba alxamdulilah haddaa amni ku hurdo gurigeyga tago hurdo ee caawa soo kagaca israaqada ilaaha haayo waa raasaa subixi xooggaa ku raasaa waa soo shaqaysaa gurigeyga maaha cashuurtan waa bixiyaa raalliya aha inaa dowladdeeda dhinac ka istaago marka dadka soomaaliyeed waxaa kaloo loo baahan yahay wadamada shisheeyaa joogna hadda wadama shisheeyaa joogna cashuuraa bixinaa ijaaraa bixinaa wax walbaa samaynaa hadda dowladdeeda ku kaalmeeya tago oo wadankeyga nabad ii noqdo oo dhinaceyga ka shaqaysto waxaan ilaa shacabka soomaaliyeed war shacabka soomaaliyeed anakaa dhimanay war gobolkaa rabtiin jooga degmo joogo tuula joogo meeshaa rabtiina joogo war gacnaa inta isqabsano tuug ma iska saari karna miya kan igu cidka haddaa ani maanta soo xiro yani geeyo adna geysid dhibaatoo dhan way naga dhex bixi dhibaatoo dhan way naga tegay waxa dhibo way naga tagayaan hadhihin walaalkay waaye hadhihin in adeerkay waaye hadhihin anoo igu qabiil yahay hadhihin anoo igu jufo yahay hadhihin waana dhibta jufo waxaa isku dhacno isku layno qoorta iska goyno waaye ee 30 sano dhiig iyo waxa ku dhex jirnay marka waxaa leeyahay yani dadka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaa leeyahay war walaalayaalow cadawaana haysto maanta waxaa maqlaaya ninka axmed madoobe ahay kenyana inta u wacdaa kenyaanka yaab soo go-ayo kenyaanka yaaba wax soo go-ayo yani wixii meesha looga tasha lahay wasiirka amnigo waxa joogaa la sheegaya wax magacaabay wasiirka wax ka qaada Jubbaland ka soo jeeday nag mala la dhaay aniga run iyo baan waxay taameele akooka nag waa adoog dhaay wax muqdisho tagay ilaa dantiisa u fiirsaday dowladdu waa soo dhaweysay maanta wuxuu magacaabay macallimow waxaa yaray hawa kii oo kale uu sin ku xigeenkiisa Axmed Madoobe waa soo badcooray xukunka ka qaada wala isku wacay saraakiil geeyana la wacday waxa la yiraahdaa ka qaadina degdeg ugu dhawaaq wasiirada degdeg ugu dhaqaaqaysi ayaa u wada yaa ku yaqaan isha war walaaliyaal arrin meeshaas ay naga maray daba dhilif meeshaas oo naga maray in Kenya inta dhaxdeena joogaan yani go'aan noo gaarano yani adigana Soomaali tahay go'aan marka kaas aniga kaas muxuu ii yahay muxuu ii sheegayaa nin Kenyan aniga amarkiisa ku socdo muxuu ii sheegayaa Jubbooyinka muxuu sheegayaa macallimowna insha Allah waxa la ismaan yani waxa la ismaan macallimow waxa la insha Allah ha guuleys warto wani geesi gada ii garbaharay noorto adiga u soo hilaacday gadoomiyeedana ada ahaa doontid adigana yani ka tali doontid Axmed kama tali doono ha Axmedna aloohaas waa laga daba tagi doonaa Axmed heerku koos dhimaro asay u taala heerkii yani dhibaato geesbir asay u taala heerkii yani hoostiisa ku noolaa doono asay u taala anaka nooma taalo gorgor iyo waxa laga adeejiha
bu'aalana waa la qaban doonaa madaxweyne oo Jubbaland ya gubertoro ee Jubbaland waa la dooran doonaa madaxweyne ma jirto waa gubertoro oo goboleed waa la magacaabi doonaa waana la dooran doonaa insha Allah bu'aala la qaban doonaa insha Allah iid waa lagu iideysan doonaa insha Allah iid hadii laga baxo ee laga baxay afka la furo awalba dadka inuu qaxa laga cabsaaye dadku waxa loo dawladda u naxeysay masaakiin Soomaali yey qaxin iid ka dambe waxa ka dhaca arka iid ka dambe ciidamada Soomaaliyeed mid ay sameeyay hadda waa horta waa u hambalyaa cusqurin in tuulooyinkaas waxa ka dhicin waa la geeyay way tageen ciidamada Soomaaliyeed ha guuleystaan maalin walbana garabkiina taagana ogaada ina garabkiina taagano maalin walba yani guusha gaartiin guushayna tahay marka waxaan ilaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ana caawa waxa isoo galiyo wax waayo yani ina arintaas ka hadlo xaasas qaladkiisa dadka dhanba way arkeen media maanta dhan la isla maray haduu sharaf horta ma bala ikraame haduu damiir wax yar ku dambeeyo waa fadhiisan doona xaasas damiir wax yar haduu ku dambeeyo caawo siyaasadda dhan waa ka bixi doona haduu qof awal dhintayna maar uma helo iloos ina iscishanaaron ina wax isku sheegnaaron ina yani waxay sanaaron hada adiga qalad gashay walaalow qaladka gashay qalad kale ha ku sii darin dhibaatada geysatay dhibaato kale ha ku sii darsanin maalin walba dhibaato ina geysatid maalin walba war waxaan ilaa hanti hataa dayniga taala hantidiina ka sabra walba una kana dhacdeen kaya hanti niga taalo ana kana waxa la dhalinta Soomaaliyeed wala walaalayaal dhalinyaro anaka waaye yani waxaan lagu tashahay anaka waaye waxa yani loo daabato ma odyashan ruuxani le dawladina taageera anaka mustaqbal le anaka ilmeyn in mustaqbal u rabno anaka olsiyeetan jir warkiisa iska dhaafno isku duubnaana gacnaha isqabsano war ma arabto ku noolo magaalada arabto ku noolo waad aragtiin dhibaatada ka jirto maamul goboleedku wuxuu ku xisaabtama maxuu keenay ma wado ii dhisay يعني اسكول مو يدسي ما هو عافمات كذا اسبطال لوغ شقي مو يدسي ما اسبطال عافمات مو يدسي معو يسمي معو ugu soo kordhiyay soddon sano ag fadhiyay macuu ugu soo kordhiyay wuxuu ku soo kordhiyay ma jirto inuu daara ka dhisto waxa ka jecdo maalin walbana ku xiro hada hadal sheegto bisoo ku soo kordhiyay waxa ku soo kordhiyay ma jirto marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta dheel ma taagno maanta waxay taagan tahay farmaajo iyo khayr ilaaha noo soo diray nimca ilaahay noo keen waa nimcadana gacanta lagu dhuuqsadaa nimcada hadee ku timaado lagama kurfiye gacanta lagu dhuuqsado waana lagu xamdiyaa ilaahay ku siiye maanta waxaan arkaa fifaalo maanta waxaan arkaa ma sha Allah tabarakallah dhulkii xuroobay ma sha Allah tabarakallah waxaan arkaa maamuladii israacay waxaan arkaa intaan kale warraf dhaaso Puntland iyo waxa warraf dhaasan waa imaahay hadda ku bilaabatay Puntland mar hore niisheeg mar hore falaan baad mar hore ku bilaabatay ciidamadooda maalin walba waxay ka dhoofaan waxay ka dhoofaan buu hadla Muqdisho u dhoofaan ilaa $75 in 300 qaada isku hal ma aha oo wax ku haysanin oo cunugiisa oo dhinta wax heleynin oo xaquuq heleynin wuxuu ka astada maalin walba buu hadlay ka duulaan بوادلين تسكو تغاني وعيرهان سانا فيعميسا ka tagno marka insha Allah waa soo gabagabay hadu ilaahay yara waxa leeyahay dhalinta Soomaaliyeed waxa leeyahay cadaw hadana haasto cadaw Kenya cadaw noo sagaalka bilood waxay rabtaa Kenya ay ku darsatay waxay rabtaa inay cadaadiso waxay rabtaa badan inay gobol ka hesho waxay rabtaa dhibaato kale hadaan iska celinino isku duumnaanin dhibaato kale ina la rabtaa si ay ku ongolaato Soomaali wada hadal ay ku ongolaatay badeedu nus ugu dhiibto rabta ma yeelayno shacab hadaan hanay hada dawlad nahnay ma yeelayno yeelimayna Kenya ana kana magumeysan kartaa waxa leeyahay wiilasha Soomaaliyeed dhalinyarada ee daba dhilfiyada daba joogaan walaalayaal dhulkiina u heliya dhulkiina helaniga filan dhulkiina u heliya Kenya iska bixiya dadka Jubbaland la walaalayaal mara la dhinta dhimasho maalin walba dhimatiin
maalin walba war haddaa sheegtiin xabadda niigu luftaa maalin walba dhibaato niila geystaa maalin walba sig walba niila yeelaan maalin walba keeyaan baawarta nii dardarsiiyaan maalin walba madfac niigu garaacaan war dhimasho niima dhaantay axmed iska bixiyo heer jubbaland waxaa leeyahay dowladda soomaaliya soo hiiliya dowladdiina gargaar u soo doonta nimco waa gaari doontiina gargaar u soo doonta gargaar u soo doonta la wiilasha Soomaaliyeed daba joogan Axmed waxa leeyahay warniyo ni Soomaaliyeed dad damir kugu jiro war Kenya u adeegine Kenya ma gaale ah u adeegine dawladda u shaqayso dantaada u shaqayso ilmaada u shaqayso dhaxashooda ilaasho Kenya tuugoona Kenya ma oo gaale ana kaanu daba joogin Axmed waa Kenya waa isbiciye Axmed mararo isbiciye maro yiraa aniga kursigeyga yaraan hasta dawlad yaraan ay kursigeyga hasta ma raba la mara dawladda raba la soo galin hebelo waa la soo galin waa dhamaatay inda fay kala sii waa dhamaatay marka insha Allah waa soo gabagabo ilaahay yaraa waxaan ilaahay walaalayaal qarani rajaa ani intaas ay soo gelisay waxa rabaa marka dhalinta Soomaaliyeed walaalayaal oo isku tirsanaan dhalinta Soomaaliyeed heeday dhagahayse dhalinta Soomaaliyeed heeday dhagahayse oo dhaxasha kuwaan wada hagnow dhagahayse udhaxasha kuwaan wada hagnow dhagahayse dhulkeygani mahalahay baa u soo dhici dhulkeygani mahalahay baa u soo dhici oo haddaanay ka dhidhin oo hodhigaan u horin oo haddaanay ka dhidhin oo hodhigaan u horin oo dhaxasha lehnaha haba la dhacaya dhaxasha lehnaha haba la dhacaya oo gashka meeshay galan hangulka dhali yaqaan oo haramcadahan heysana ha u habsan lahay oo haramcadan heysana ha u habsan lahay gabdhaha Soomaaliyeed heedow gurbahanka tuma gabdhaha Soomaaliyeed heedow gurbahanka tuma ragga haddaad garabka joogto gulxamahaya ragga haddaad garabka joogto gulxamahaya sidee garyarow libaaxbowga hatama sidee garyarow libaaxbowga hatama waanaga baqan meyna Soomaalibahanihi waanaga baqan meyna Soomaalibahanihi oo sidka iya Axmed Gurey hey balla suurnihi oo sidka iya Axmed Gurey hey balla suurnihi ay galab colaadeed markii higeska lehes gashadu ay galab colaadeed markii higeska lehes gashadu go'aanka adkaadaba hangulka dhalinaqaan oo go'aanka adkaadaba hangulka dhalinaqaan shasheeyaynaha ushow horno shashada jarna oo shasheeyaynaha ushow horno shashada jarna Soomaaliya isku tiirsana hamba wax noo tarte Soomaaliya isku tiirsana hamba wax noo tarte oo talaadaynahan wada hagna wax noo tarte oo talaadaynahan wada hagna wax noo tarte
adolkeenayna la dhowra wax noo tarte adolkeenayna la dhowra wax noo tarte magaca Soomaaliyeed baan ku nahay mas-uul oo magaca Soomaaliyeed baan ku nahay mas-uul Soomaaliya israactani le Soomaali waxaan leeyahay cadowga nagu dhex jiro ilaahay naga saaro waxaan leeyahay dabadha dhilifka nagu jiro Allah naga saaro shashaayana wax naga qaadi ma karo Soomaali baan anaka geesinimadayna waa la yaqaanaa Kenyaanna wax naga qaadi karo Carabna wax naga qaadi karo walaalayaal kala daadsanaan aan hayso wallahi kala daadsanaan aan hayso maayna gabarta Soomaaliyeed gabarta Soomaaliyeed Kenyaan umarogsa karo hadda ogeynin anani ogaysa gabar Soomaaliyeed والله إنه كيان نك كيان حتى كل إنه أروكسده ورجسيال أنا هنا عم جوري أنا قد شيء عاوتاك أنا قد على وأنا قد شيء سيدك ورولا على يالو هريا ذا أسك قادنو سومال وين هريا ذا أسك قادنو أنت شنو تلا ذا أن وذقنو قبل قربتك سوجك نما كانوا نحجرانه مورد نقعتنا أسك بحنو nimanka nagu dhex jiraan saas nasiyeen naqaseen soddon sano soo jeeje waligay dawlad Soomaaliyeed ma arkin runta hada ka waramo xaqiiqda ka waramo dawlad Soomaaliyeed ma arkin maalin walba dhibaataan aragna maanta dawlad helay kan igu dumar raba inay u diidno waa diinan war dhalinyaro waxaan 75 dhalinyaro boqolki 75 Soomaali waa dhalinyaro dhalinyarada waa la kala qabtay war dhalinyaro yaana la kala qoqobin nidan istaayo kala qoqobin atashano asku tagno meel walbo war dibadda iyo dalka ma joogno isku tagno gruubya isku tagno atashano dalkeena u dadaalna dhaxda aan xirano saa wax u qabsanayn saa wax u sameeysan hadda maanta maanay ka fiicanta ma la arkaya maanta dawladaan ay sanadeena nagal cafi wax walba nagal cafi wax walba noola sameey war aqligiina shaqeeya dhalinyaro yaa nagu qaraabanin war ma harabta joog gobolka arabta ka soo jeed fiir horto waxa la yiri ninka kabaha ka torta kabiisa la day halka madaxda ku fiir soo wax ku wado kan gobolka jooga ku tali day soo wax ku wado hada qalbaya qabo هذا دولة اللي تقينا قبو مرك ولا ليالو واني سلامة إن شاء الله غيرني رجاء وعن الله إن شاء الله وإن شاء الله وقولي صدقنا إن شاء الله وعور رمضان إله وربي وجوشها نصيو إلهي إنه وعمل لقيا بدن قد الله لقينا إن شاء الله إنه واحد نوجو جرتو أبشرت إنه نوجو جرتو وعمل لقيا با يعني شرطة سودك دكتو غير كداهو إلهي إنه قرن وقت لقو Soomaali isku raacato war Soomaaliyeey israacda maxamed adduunku way naga hiilisay waxa nooga hiilisay galadaadanadeeno war waxa li nin walba dantiisa wata ana ka dantayna wadayna waa aamusayna ma galna buuq balaaya ma galno waxaan leeyahay dawladeena garabka ka istaagna Kenya si u quusato dawladeena garabka ka istaagna ضلبوا بنيكي صارت واني سلامة إن شاء الله غرني رجايا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.